السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروي اليوم ضليان واحد كسود واتين وروحي الدلك اللي سوى قاره من كان عاو حق التلفزيون كا قطبنا أقول دور كورن وركينا حق التلفزيون كا وحا كمدا مدحوينها جمهورية جيبوتي قدومية قلا حكومة ضمن اسمان عمر البراية الدور وكسو لعطي عاصمة جيبوتي كبير سديدي أفرت سعادة بغشاها ولد كجوغي دلك نيوزيلاند رئيس وزراء دلك دليتا محمد دليتا وساك حفيز كيسا قابل حوضيها قودة كعاك شعبية مرحبنا كونفرت السودان أهلا لطليها وقاميها كونفرت السودان مستر باغاما آمو sida wadamada caalamka inteeda kala dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay xuska maalinta caalamiga afka oo lagu qabtay gobolka Cali Sabiix iyo gobolka Tadjoura intaas oo warkii oo kooban haatan la isagii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Galaaya goordhow ku soo laabtay caasimadda Djibouti kadib markuu 48 saacadood booqasho hay'ad ku joogay dalka Iceland madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galaaya markii uu ka soo daadegay gagada dawladaha caalamiga ee Djibouti waxa uu kaasi ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Daleita Maxamed Daleita xubnaha xukuumadda xildhibaanada مسؤولين kala duwan oo ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxa uu booqasho hay'ad oo qaatay laba maalmood oo ku joogay caasimadda Reykjavik ee dalka Iceland waxa sidoo kale ku soo dhaweeyay madaxda kala duwan ee ciidamada dalka jamhuuriyadda Djibouti inta uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Galaaya dalka Iceland waxa uu kulamo jaajad oo la yeeshay madaxda kala duwan ee dalka Iceland ugu horeyntiina madaxweynaha waxa uu sidoo kale kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Iceland madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galaaya waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dalka Iceland waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka saaxiibtinimada iyo iskaashiga u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan xagga amniga dhulka hoostiisa laga soo sareeyay yaqaan geotonic dalkaas oo hadal ku ah dalka Iceland socdaalkaasina madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galaaya waxa ku wehelinayay waqti aad u ballaaran oo kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf الدقة مقالة مدحدة مدنها علي إسماعيل يا ودن درها دولة فرنسيسكا وجوجة جيبوتي رشاد فرح إلى طلياشة مدحونها جمهورية جيبوتي مدحها هيلو يكو كسو على ذلك جمهورية جيبوتي سيدا وزيرك الرماها دبدا يسكاشق عالمي جيبوتي محمود علي يوسف وحا مدحها الدولة إزراب أي كلا صاحدين هشيسيوه كلا دولة قصة الله سيدي نوسيق ويجين لها حرير كصاحب تنمو يسكاشق أبحا يدلك جمهورية جيبوتي وحانا هشيسيوه دا سيقو بجوغوها مدحونها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر iyo waliba madaxweynaha dalka Iceland Olafur Rakma Crimson inta uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galaaya dalka Iceland waxa uu soo booqday xarumaha laga dhaliyo amniga dhulka hoostiisa laga soo saaro yaqaan geothermic iyo waliba xarumaha dhaqaalaha iyo waliba dalxiiska ee dalka Iceland sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galaaya inta uu ku sugnaa dalka Iceland waraysi la yeeshay Maxamed Abdaahir oo ka tirsan wariyaasha laanta afka Soomaaliga ee golaha raadiyo telefishinka Djibouti waxa uu sheegay si weyn ugu baday wada hadalladii u dhaxeeyay madaxda dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxda dalka Iceland bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan u faraxsanahay oo wixii aan socnay waan gaarnay baan maleynaa wada hadal iyo xiriir wanaagsan on dhisnay dad aan isku wax badan aan wadaagno oo dabeecadda ugu badan oo dhul yani maanta ay gaadheen ayagu inay noqdaan wadankii Yurub ugu horeeyay ee ku amal fala tamar aanan lahayn carbon aanan lahayn aanan u baahanin petrol iyo saliid lacag fara badan goysa oo ilaahay dhulka u dhigay ayay bartaan cilmigiina la soo baxeen inay
inay ku camal falaan oo maantana meel dheer ay ka gaareen noo fureen dalbaabkii annaguna inaan cilmigooda ka faa'iidaysano in aan annaguna ay nala gargaaraan ama wax nagala qabtaan sidii aan waxa ay leeyihiin baan annaguna leenahay waddankeena oo tamarta la yidhaahdo geotermiga dabeecaddu ay abuurtay 2,000 mitir oo dhulka hoostiisa laga soo saarayo oo idinka arkay kooraanka waddanka oo dhan isagu ku socdaa kooraan jaban weeyaan insha allahu tacaala waan gaaraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelaha isagoo faahfaahin ka bixinayay qodobadii kala duwan ee la saxeexday madaxweynaha dalka Islaand intii uu joogay dalka Islaand booqasho 48 saacadood uu ku joogay dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay xogayaha guud ee kacaanka shacbiga iyo madaxbannaanida koonfurta dalka Suudaan ahna hogaamiyaha la taliya koonfurta Suudaan Mr Bagama Amun waqtigani waxa uu ka kooban 3 xubnood waxa horkacaya Mr Bagama Amu oo ah xogayaha guud ee kacaanka shacbiga iyo madaxbannaanida koonfurta Suudaan kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta iyo wafdiga ka socda dalka Suudaan waxa goobjoog waxa uu ka qayb qaatay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka cagan cashuuraadka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Abuure kahor wafdigan inta uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta waxay soo boqdeen qaybta Zofrash loo yaqaano markii ay goobtaasi gaareen waxa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta qaybta ka cagan cashuuraadka loo yaqaano Zofrash waxaana markiiba shir wargelin ku saabsan habsocodka howlahaas ay yeesheen gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo weliba qaybaha ka cagan cashuuraadka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Abuure kadibna kulankaasi uga qabsoomay wafdigaasi waxa wafdigu ay soo booqdeen marsada Dooraale oo halkaasi iminka ka socdo dhismaha cusub ee terminal container ee laga dhisayo marsada Dooraale sidoo kalena xubnahan iyagu ka socda dalka Suudaan ee horkacaya xogayaha guud ee kacaanka shacbiga iyo weli madaxbannaanida koonfurta Suudaan ahna la taliyaha hogaamiyaha koonfurta dalka Suudaan Mr Bagama Amu waxay soo booqdeen oo ay soo indheeyeen qaybta shidaalka ee laga dhisayo isla marsada Dooraale ee loo yaqaano terminal petrolier socdaalkaasina wafdiga waxaa ku weerinayay madaxda marsada iyo weliba qaybaha ka cagan cashuuraadka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka cagan cashuuraadka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Abuure oo waraysiga la yeeshay waxa markii hore uu sheegay in soo dhaweynaya aan fidiyay wafdigaasi waxaana uu sheegay in maana faahfaahsan wafdigaasi laga siiyay howlaha ka socda marsada Dooraale haddii ay tahay mashruuca ku aadan dhismaha qaybta cusub ee terminal container loo yaqaano waxaanu ku guda jirnaa ayaa weli gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka cagan cashuuraadka Cabdiraxmaan Maxamed Abuure sidii marsada Dooraale aan u horumarin lahayn waxa sidoo kale ku jirna sidii aan u dhamaystir lahayn howlahaasi bisha Juun ee soo socota maintenant à 10 ils sont faits par route jusqu'à Gambella et dans Gambella ils vont aller jusqu'à Juba et ça va donner une valeur importante pour ce projet qu'on est en train de faire parce qu'il faut prévoir le jour qu'on va être prêt ici qu'on est aussi prêt pour servir tous les pays arriérés. Une fois que vous êtes à Soudan, vous arrivez à tous les pays, Ouganda, Burundi, Rwanda, même le Congo, même le Centrafrique, on peut arriver d'ici. Et c'est ça le but de Djibouti. sida wadamada caalamka inteeda kala dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti waxa maanta laga xusay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo xuskaasi oo sanadkani lagu qabtay gobolka Ali Sabiix waxa daadihinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobolada oo si ku meel gaar ah jagada wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka mudane Yaasiin Cilmi Buux waxaana uu joogay oo ka soo qayb qaatay wasiirka hoyga iyo magaaleynta mudane Cilmi Cabsiye Wahays wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdi Ibraahim Cabsiye mas'uuliyiin isugu jira rayidka militari iyo culamaa diin sidoo kale waxa ka soo qayb qaatay gudoomiyaha gobolka Ali Sabiix mudane Ibraahim Subrar Yaale Allah
arrimaha darteeyo markaan gees wala eegay waxay garashadeen noqotay talo ku soo gooyay adduunka ugu gudbaayo aqoon la isku garab yahay taariikh lagana iyo dayax guudka laga fuulay garashiya aqoon baadin lagu gar qaadaayo zaynta galmudug garanaya jirin gabadha dacay adeega dadka sii galin mid ka tagay ayaa dacay dib aad gaareen intay goorta isgaad way ku gees leeyihiin Alors, bandit, il y a 3 semaines, examen du son je ne sais pas avec qui vous le voyez, peut-être que les examen, déjà, on a commencé à faire, c'est le jour où on a fait c'est pour ça que tu as un peu ما في كانوا كوبياسو أنا كوليجي الزمان الماسكة ما كان صومرني فشكل سنة أمبو هذا الشمال بيرقصوا أمبو ليش نجي دم ما فينا كواب الله xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo maalintii shalay ka bilaabmay gobolka Cali Sabiix waxa lagu bilaabay doodaha iyagoo ku saleysan xuska maalinta caalamiga afka hooyo xuskaasi oo soo qabanqaabiyeen xubnaha ka socda Soomaaliya Speaker Pen iyo kuwa ka socda bulshada rayidka waxaa dhaqaajiyay wasiirka hoyga magaalada mudane Cilmi Absiye Oways sanadkan waxaa ku dhig looga dhigay kobcinta afka hooyo in dowladda Djibouti ay bisha February 2020 loo dabaaldego xuska afka hooyo badbaadada afka hooyo waxaad maanta sharaf inoo iyadoo sanadkii hore lagu qabtay Djibouti in sanadkan lagu qabto Cali Sabiix iyadoo ay iska kaashadayaan ururka Somali Pen la yiraahdo aqoonyahankan nala joogaay sharafta weyn ay ka tirsan yihiin iyo gobolka Cali Sabiix ay iska kaashadaan si munaasabad ay si fiican ay ugu dhacdo kolka galabta waxaad geli doontiin waxaad isweydiin doontiin afkan hooyo halkuu joogaa maxaa ka maqan halkuu ina joogahay maxaa ugu wacan sidii uu afkaay looga qaybgeli lahaa ninkasta fikradiisa ka dhiiban lahaa rag iyo dumarba oday iyo inan gabadh islaan waxgarab oo hadduu alla yidhaaho aan wax uga soo saari lahayn dee sidii afkeennaa hooyo uu u jiri lahaa horey ugu socon lahaa baaba'aa la sheegayo uga nabadgeli lahaa iyaad galabta isweydiinaysiin horumarka af kaloo ajnabi horumar laguma gaadho waa la darsay wax kasta si kasta loo rogay af la bartay oo ajnabi horumar laguma gaadho afkaaga oo horumar loo gaadha kolka in sidaan u adkaysan lahayn waa inaan fikir qabano waxa shirkina baadin doona دكتور أفرح نكن وان شرف ويلي يا وان قراءة ويان الصومال كقراءة في جريس كقراءة والله عام والله يقان ويان شرف بين نوتاي جوجا إن الجو wasiirka hoyga magaalada iyo deegaanka mudane Cilmi Absiye Oways hal gaabo ka jeediyay munaasabada ku dhaqaajiyay xuska maalinta caalamiga afka hooyo kadibna waxa munaasabadaasi sidoo kale hadal gaaban ka jeediyay Dr. Maxamed Daahir Afrax oo kamid ah ururka Somali Pen soo qaban qaabiyay xuska maalinta caalamiga afka hooyo u jecel sameeyay in Cali Sabiix halkan ku waxa weeye
inaan helo idinka aqoontiina iyo talooyinkiina iyo fikradiina wanaagsan waayo dadku marka ay ka sii xigaan dhulka waxaa jira wax muxuu ahaa meelaha qaarkood qaraabadaas weyaan magac la yidhaahdo aan u doortay ku dhaabanayaasha dhulka markaa dadka qaar way ku adkaan kartaa ku dhaabanayaasha dhulka dadka ku dhaaban yani ama ku dhaqanayaasha nafta dhulka dadka dhulka dhulkooda iyo ayagu ay isku dhafan yihiin dadka qaarna way barxameen dhulka way ka tageen meelo kala duwan dadna waxa weeye waa dadkii rasmiga ahaa ee dhulkooda marka in la gaaro dadka garanaysa ku dhaqanayaasha dhulka ee nafta dareenka marka sida bulshada marka raacda sameeyo qaybaheeda kala duwan rag iyo dumar iyo yaryar iyo waaweyn iyo caruur iyo ciroole iyo magaalo iyo ganacsato iyo cimaamadiin iyo cid walba bal sida aad u arkaysaan baahida afkeena in sidaan si ka wanaagsan loo daryeelo loo ilaaliyo looga faa'iidaysto loo horumariyo ama loo barto qur-aankiisa iyo akhriskiisa bal sida aad u arkaysaan in muxuu ahaa dareenkii naas aan la wadaagno in dhegaysano idinkala tegno meelaha badan oo kale aan ogaani doonaa bishii tobanka sidoo kale xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo waxaa lagu qabtay magaalada Tajoora ee waqooyiga dalka xuskaasi waxaa soo qabanqaabiyay golaha heerka gobol ee gobolada Tajoora iyo Oboq oo iskaashki la yeeshay ururka afarta speaker ee lagu magacaabo wakiil ka yahay gudoomiyaha ururkaasi Mudane Sheikh Wata munaasabadaasi oo lagu soo bandhigay heesaha hidaha iyo dhaqanada waxa soo qabanqaabiyay ururada hadalinta iyo haweenka ka jira gobolada kala duwan ee tuulooyinka Qalaaf iyo waliba Randa xuskaasina waxa ka qayb qaatay mas'uuliyiin isugu jira military rayid iyo culama oo diin oo ay kamid yihiin gudoomiyaasha gobolada Tajoora iyo Oboq Mudane Cabdirasaaq Daawud Umar Afarada iyo gudoomiyaha heerka gobol iyo waliba sultaanka Tajoora dhinaca xukuumadda Djibouti xuskaasi waxa ka qayb qaadatay wasiirada qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwo Aasha Maxamed Arroob iyo waliba mas'uuliyiin afar badan
munaasabadaasina waxaa iyagoo kasoo qayb qaatay aqoonyahanka ku jira aqoonyahanka ku jira speaker ee nabadaha Cafarida waxa sidoo kale munaasabadaasi hadal abaabul isla ka jeediyay gudoomiyaha ururkaasi madane Sheekhan Awata isagoo dhalinyarada ku dhiirigeliyay in ay daryeelaan oo ay dowraan afkooda hooyo imbida sinikinankihi sinihi hayni ayroy toadi kasisi rahmata abar lugsugte baarugu dudduham dhi'ihama kasisi bani aadan dhinaca xukuumadda sidaan hore u sheegnaba waxaa xuskaasi ka qayb qaadatay wasiiradaha qaabilsan kobcinta haweenka iyo daryeelka qoyska Marwa Caasha Maxamed Raali hadal gaaban ka jeedisay waxa ay ku dhiirigelisay dhalinyaradu in ay si wanaagsan u dowraan afkooda hooyo wasiiradaha qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Caasha Maxamed Raali waxa hadalkeeda ku bilowday farxad gaar ah ay tahay maanta in aan idinkala qayb qaato xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo dhammaantiin baa inta meesha joogta waxaa lagu dhiirigelinayaa tir wasiirada qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska in aad daryeeshin oo aad ku dadaashin sidii aad u kobcin lahaydeen afafkiina iyo weliba dhaqankiinada afka hooyo oo qaybta doona ha noqdee waxa uu yahay udubdhaxaadka nolosha iyo tiraka jiritaanka gaar ahaan bay tiri dhalinyarada iyagu kala duwan waxaan ku dhiirigelinayaa isla markaana ku tirtirsiinayaa in ay daryeelaan afkooda أسأكونان أبلمي أبو ياي يمكنها جرك تماشي برهاي أمته قداستك xisbiga qaranka dimuqraadiyadda PND ayaa maanta soo gabagabeeyay fadhiweynihii afraad ee caadiga ee maalintii shalay ku qabtay guriga ummadda caasimadda Djibouti gees kale fadhiweynaha afraad ee maalintii shalay ka furmay guriga ummadda caasimadda Djibouti ee lagu soo magacaabay gudoomiyaha xisbiga PND mudane Aadan Rable Cawaale waxaana waraysi aan la yeelanay xubno oo ka tirsan guddiga xisbiga PND iyo weliba taageerayaasha wadin aragtidooda ku wajahan gudoomiyaha dib lagu soo magacaabay jagada ee مدن آدم ربنا عوالي بريزدان كبار سفر عند أول عبي كان ده كتير يجرهد سجل أهل العليا بيسكا رادي بالجاها أنت هربا أنت سويبا رادي بالجاها الدين النعي لجل عليا بدي كل كأد بقول هذا المغني يسفر عن العليا تاسو هاي شعور كلنا يسفر عن غور راعين دي أدبر فرح سنة ما أنتم حيلك المالي عيدة أيه لا توان كوكسون ولي جاي علينا كوسو كسون إلا يوم أنت الحسب أساسي إلا يشوف قدامنا إياه كوكسون أدنى أنا فرح سنة سياسة أدنى ربع ولا ونوجه حيف عنا من الوص نقدر كنا وين ضمان واحدة للعبيرة تانك شيء اللي مدرته ستة عنا نقرب تاجنا وأنا مدحنا قالجا أنا ربع ولا تنكون بلينا يا وأنا سلام يا أدي أدنى فرح سنة الشعب كنا أدي أدنى سلام يا كسوق قبلي هذه الشربة سوقر بجوا مدحوينها غالبا حسب PND آدم ربع عواله horta marka waraysa hadaad weydiisay mudana aad raba waalay rashid salaam hadaad weydiisay taan loo horta aad baan ku farxsanahay waayo mid kale oo la dooran lahaa meesha soo joogsan way jirin ba isaga laantii xisbigu iyo soo inaan laga aqoonsanahay anagu waadaan hay xisbiga PND ilaa saasha ilaa maanta la abuuray ilaa maanta taageerayaasha soo gurbi joogaan anigu hadii aan hay Caasha Axmed aan ka midahay إلا كان سنين بان قرب شوقنا رأي بان كرناهاي ولشيء مر لبعض أسبوعية أنا جو هذا هرب وأنا شغلنا حالي أنا جو كاوي عالم النظر كل شيء kuwaasina waxay taageerayaasha xisbiga qaranka dimuqraadiyadda PND oo maalintii shalay ka soo qayb qaatay fadhiweynihii afraad ee caadiga ah ee yeeshay xisbiga PND lagu soo magacaabay gudoomiyaha xisbiga PND mudane Aadan Rable Cawaale qodobkaas ayaa daawadeen ugu dambeeyay warbixii dalka laga soo gaaray haweenkana caawaynta dib u kulmi doono dhammaantiin meel ka soo joogta naga daawanaysan waxaan idin tagnaa nabadgelyo iyo ammaan Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh